هاملتون baad kor ka arkaysaa gabigeed waatan waa xawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب ميل باجوكين aad baa idin salaameen maanta waxaan joognaa Hamilton waxa weyn magaalooyinka ama meelaha ay ku badan yihiin Soomaalida ay ka mid tahay xaafadaha ay ku badan yihiin soo marka Hamilton qaab uu samaysan tahay iyo meelaha ay Soomaalida xataa waxaan maqlay dukaamo Soomaali ay ka badan yihiin waa tagi doonaa waan isla arki doonaa insha Allah la socon dabaqadan waa apartment waxa la yiraahdaa Coin Buildings waa caan waxay weyn Soomaalida meelaha markay dibadaha joogan aad bay isku urursadaan oo inay meel isla degaan isku heshadaan jecel yihiin marka dabaqan waxay ka mid yihiin dabaqada aad ay u degan yihiin Soomaalida meeshaan waa masaajidka ugu weyn ee downtown ku yaala Soomaalida badankooda isugu yimaadaan ay ku tukadaan iyo muslimiinta dhammaan ee degan Hamilton masaajid aad weyn ma sha Allah intan waa parkingkiisa aad buu weyn yahay ilaa halkaas gawaarida dhiganaya qaybtaasna waa qaybta dumarka qaybtana waa qaybta ragga dhismahan waxa weyn waa dhismaha basaska laga raaco ee basaska waaweyn ee gobolada aada sida Niagara Falls oo kale Toronto marka aadaysid Burlington marka aadaysid adiga Ontario dhexdeeda meelaha aadaysid oo dhan ayaa laga raaca Hamilton waa magaalo taariikhi badan ay ku sameeyaan waxaan aad arkaysaan askartan iyo waxa meesha ku soo waran ay diyaarado oo miig iyo dagaalkeedu waxyaabo badan ku soo waran macnaha waxay ka hadlayaan Canadian Force Operation 1945 ilaa iyo 2022 hadda lagu jiro macnaha waxay ka hadlayaan dagaalada xilligaasi 1945 ilaa iyo 2022 hadda lagu jiro inta meel ay macna dagaal operation ay ka sameeyeen ama howlgal ay meesha ay ku soo xuseen howlgalkii ugu horeeyay ee ka qayb galeenna wuxuu ahaa 1950kii ilaa 1953 howlgal nabad ilaalin ah Korea ay markaas u tagay kale waxay meesha ku soo xuseen inay ka mid yihiin ciidamada NATO la yiraahdo 1950kii ilaa hadda 2022 lagu jiro ay macna ka mid yihiin ciidamada NATO xataa dagaalkii Gulf and Kuwait 1990 ilaa 1990 waxaan u maleynayaa inay ka wadaan dagaalkii Ciraaq iyo Kuwait u dhexeyn jiray sidoo kale Soomaaliya 1992 ilaa 1993 howlgal ay ka sameeyeen ciidamada waxaan u maleynayaa xilligaasi ay Soomaaliya sheegayaan xilligii ciidid in la soo qabto ay rabeen oo maleynayaa inay tahay waxay kaloo leeyihiin xataa Liibiya laftirkeedii inuu macna dagaalka ay ka qayb qaateen waagii 2011 Muammar al-Gaddafi ma Allah حتى أفغانستان وقالين 2001 إلى 2014 ku jireen marka waa ciidan waxa weyn howlgal badan soo sameeyay meesha ku soo qoreen waxa meesha waa meel taariikhi ah yani ku soo xuseen waa baark la fariisto haddana waxa arkaysa sawiraantii waxay askartooda waxay ka amaanayeen meesha ku soo dhijiyeen sawirka
sawirkaan arkaysa iga dambeeya isagana wuxuu ka turjumayaa dagaalka koowaad ee adduunka markay u diyaargaroobayeen ciidamada Kanadiyaanka ah waxayna taagnaayeen waddo la yiraahdo King Street ayagoo jooga isku diyaargareynaya dagaalka inay aadaan meesha ku dabaaldegayeen isku soo aruurinayeen ayay markaa sawirka laga qaatay xasuus way macnaha meesha ay joogeen xaraalka waa karaa xitaa halkaa laga arki karaa oo meeshaas isku diyaarinayeen so weli wax badan inoo dhiman oo hore u socda arkayso sawiraanta ku dhagan ama xusuusinta yani askarta waxa lagu dhijiyay waxa leedahay waa meel baarka camal ah fadhiyo leedahay waa la fadhiistaa waa lagu baashaalaa waa lagu shaaheeyaa sidaas waxa walba ku yaala waas la hamil dhexdeeda galabta meeshaan iska soo fariisanaysaa biyaha maxamed smoking mirrors keep us waiting on a miracle. area-dan gaarnin waxaa la yiraahdaa Dahabshiil xaafadda area-dan dhan waxa weyn Soomaalida aad ugu badan tahay xataa meesha hadda inoo muuqato waa dukaan Soomaali ah waa ka arkaysaan qofkaas si galay waa qof Soomaali ah gudaha hor u galayna waa dukaan Soomaali oo ku dhex yaala asagana Hamilton waxaad ka helaysaan dharka noocyadiisa kala duwan waxyaabo badan baad helaysaa oo xataa ku quseeya waxyaabo guriyasha lagu calfiyo xataa nacnacay TikTok ma laha isi dharkii marka hal iskeeno nacnacay TikTok oo dadka aad u xiisinaya xataa waa yaala dukaanka joogto maasha Allah maamadeen hooyo Soomaaliyeed waay السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. حلال أصحاب. أصحاب وايد السلام دمانتين. هادي. الله يدين أركو. إن شاء الله هاي هذا ما سنتاي هذا ما سنتاي سيدو كلا الدكان كا وحياة بدن يلا حتى حبال ذا كل حتى هذا العقد السنة يصير everything كده حيله. طبعاً وحوين library اللي هذا أما مكتبات سيد لو يقانو وعملها بوقت وحوا أقرسته أو لوصو يعني باشال عمل أسادة ساب بوقت وحاسة آخر سنة سال. جوجو وحوين أيضا أستانت حافظة هاملتون وعاد كنا وحوين هاملتون علامة ذي يعني مقع علامة هاملتون أي المسمى اللي حبين مثل كذا biyahan arkaysan wuxuu bixinayaa leeray bixinayaa wax kala laga I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. السلام عليكم. ولي واسعنا فيديوغا waxaan joognaa hadda soo aaday buurta ugu dheer ee Hamilton ee la yiraahdo Hamilton View. buurta waxa la yiraahdaa magaceeda Aber James ama Hamilton View sida loo yaqaano. marka Hamilton baad kor ka arkaysaa. yani magaalada aan maanta idinsanay gabigeed waa haween. baabuurta kuwaas oo asmarayaan waxa magaalada dhan baad halkan ka arkaysaa. dabeel badan baa halkan ka dhacaysa. marka xataa waxa la meel la fiirto fiirsanaysaa halkan aad ka daawanaysaa waad iska raaxaysaa dhismahana dhismo caan ka ah weeyaan Hamilton dhexdeeda Jackson Square ama Jackson Mall la dhahaa waa mall aad u weyn wax walba laga dhaxelaa meesha hadda mall ka dhexdiisa ku dhex yaala waxaan rabaa inaan cabitaan meeshaan cabitaan lagu sameeyaa oo fresh kuwana fruitkaas lagu shiidayaa meesha waa daarta fariisan kartaa meesha magaceedu waxaa la yiraahdaa real fruit yani fruit oo sax laga gadayaa
marka cabitaanka dalbanaysa saasa lagu sameeynaya isagoo sajilaysan wax saasa ku qaadanaysa marida lagu diyaarinaya that's it miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough. Yeah, we're good enough. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me go. waxyar moolka markaan ka soo baxay kadib waxaan arkay dukaan kale oo Soomaali ah asagana gudihiisaan geli doonaa waa arki doonaa Soomaali market ku qoran kuleyba waan isla fiiri doonaa aniga laftigay waa maalinka ugu horeysay aan galay dhismahana waxa la igu sheegay inuu yahay Johnny McDonald in la dhaho waa high schoolka ee Hamilton ku dhex yaala ka soo horjeedka ay ku yaala dukaankan Soomaalida ay leeyihiin marka gudihiisaan galaynaa taaja xagan ku qoran taaj service I think in xawaalad wax walba ay ku yaalaan gudaha let's go gudahan galaynaa dukaanka albaabkiisa hore waxa uu ku dhagan calanka Soomaaliya ما شاء الله وعمل صومالي أيضا وماشي لبعض أن صومرنا علنكين وسورين هاي نركب لها وحول ضل هنا حتى رجع قميص كودي ما شاء الله ماشي أنا كوسماتيكس ضباط every cosmetics هذا حتى عن جرب وشي دي ويتها لا وصاو حرن أركا وعمل ديارسن حداتي مادد حملتون أيضا سوى كلا من هذا موجاني حوين ولايك ميني ماركت وكلا حتى أنتوا حيابا كيالان هيلبكي everything وحول بالو قدا أيضا مركز صومالي وحوين ما شاء الله أو شقة سنسا وهوي صومالي هذا أنت نسيبه كلا أيضا أسكاله ماشي وراء وصار إنه هوي صومالي مركز هوي صومالي ده قاعد بيقول ده يعني ما شاء الله Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. حلال ميت وسائل اسمه قرن دقيرتي حتى وتعالى واو دقير صومالي حتى دقير صومالي ما شاء الله السعني المقالة قد حوريقني وحصوق قلني دكان صومالي إلى رنا أنتي هذا أبو فرحي صومالي ميل بيجوك تويش غسل waxaan rajayn doonaa Soomaalida timaada Hamilton inay soo boqon doonaan meelaha Soomaalida ay ka heli doonaan wax walba oo wadankooda ay ugu soo tageen ama waxna Afrika laga helo in meesha loogu soo dhaweeyo sidoo kale waxyaabo waxa jiro oo sidoo kale aan laga helin dukaamadaha kale cadaanka waxaas aan laga helin adiga hooyigii waa iska taqaana alaabta xataa fiiri waxyaabihii guriga lagu habeysanayo waaye عذركيو كلا دق ترتيبتا لوgu shubaya jawdiga sidoo kale meesha xataa xawaalada ku dhex taala lacagtaada waa ku dirsan kartaa money transfer soo muuqaalkeena asaas ugu sii dheeraada mar intaan muuqaalkiisa xiga gaardeen waxa yeelana sidaas iyo nabadgelyo